waalid maxaad ka taqaanaa halganka ay wajahayso hooyo keligeeda single mother ah oo haddana korinayso ilmo autistic ah. halganka iyo duruufahay wajahayso yaan wax yar ka tilmaamaynaa iyo waxa solution xal noqon kara. fadlan waalid channelkan adaa lagu sameeyey, waxaana la yidhaha waalid legacy. subscribe dha walaalaha muslimiinta ana la share gareen. hooyo keligeeda oo qurbaha ku korinayso ilmo qaba autism cilada la yidhaahdo autistic. waxaad ka fikirtaa hooyo dareemaysa isolation, bulshada inay ka go-an tahay. maxaa yeelay bulshada ay ku dhex jirto iyo sirkalka ay ka tirsan tahay ma aha dad aqoon u leh autism wuxuu yahay. sidaa darteed ma helaysa mar walba support system, ma helaysa dad waxaan fahmi kara. waxay hooyadaasu dareemaysaa inay bulshada ka go-an. waxay dareemaysaa hooyadaasi guilt ama self blame oo ah inay mar walba isdhaliisho, inay mar walba iyadu is eedeynayso, oy leedahay am I doing enough? waxa aan samaynayay ma ku filan yihiin? roolkii hooyanimo ma ka soo baxaya? doorkii waalidnimo ma ka soo baxaya? oo mar walba qalbigeeda arrintaasu ay ku tahay dhimbil ololaysa. waxay wajahaysaa hooyada wax la yidhaha financial problem oo ah duruuf dhaqaale oo adag runtii, sababtoo ah therabiga ama daweynta ciyaalka autistiga ah looga baahan yahay wax fudud maaha. waa inaad iskuulkaa geyso oo speech therapy ah, hadalka lagu barayo. waa inaad iskuulkaa kala geyso oo waxaa la yidhaahdo sensory alarm, in ma aragtay marka lala hadlo uu soo jeedsan karo. waa in iskuulkaa kale ay geyso oo qoraalkii wixii la barayo. saasay u ordaysaa, bilna waa laga rabaa. dhimbil waxay ku tahay ololaysa runtii. arrinta kale meesha jirtaa waxay tahay dugsi quraana ma geyn karto. hooyadaasi waxay dareemaysaa kalaamu rabbilcaalamiin ilmaheeda lama bari karo, sababta oo ah macalinka dugsiga jooga haddii uusan qualified u ahayn, uusan aqoon u lahayn ilmaha autistica ah sida wax loo baro, waxay leeyihiin ma qaabili karo. lagumana eedayn kara macalimiinta oo dad markaa u leh tababar ma ah. u fiirso, carruurtii kaloo dhan dugsi bay aadayaan. hooyadan maxaa u dheer keligeeda ee ilmaha autistiga korinaysa in qur-aankii xitaa uusan baran karin. dhimbil dabay ku tahay oo runtii hooyadaa gubaysa. waxaa kaloo ka mid a lack of personal time. hooyadaasi nafteeda uma helayso inta badan waqti ay nafteeda gooni la noqoto, ama filin ha daawato, ama dhar ha maydho, ama si kale ha u nasato. maxaa yeelay ilmaha inta badan autistiga ah enerjigooda badan, orodkooda badan, boodboodkooda badan. sidaa darteed hooyadani waxay kaga duwantahay hooyooyinkaoo kale. hooyooyinka kale ma ah hooyo ku odhan karta orod oo seexo, maxaa yeelay communicationkii ma jiro. hooyadaa waxaa dhimbil ololaysa ku awaalidow in ilmaheedu waxa uu rabo uusan u sheegan karin, gaaja ahayse uusan odhan karin. bilaahi caleyk ka fikir hooyo ilmaheeda xanuunka haya aanay ka wada hadli karin, oo hadday dhakhtar u geyso aan ilmahay dhakhtarku ka wada hadli karin. waa challenge kale oo ay wajahayso, waa dhimbil kaloo dab ah oo qalbigeeda ku jira. waxyaabaha hooyadaasi ay wajahaysa waxaa ka mid a concern of the safety of her child, inay ka walwalaysa mar walba amniga, nabad ahaanshaha, fayaqabka iyo badbaadada ilmaheedan autistiga ah. maxaa yeelay ilmaha autistiga ah wuu orod badan yahay, gacantaadu ka bixi wuu carari, baabuurta miyaa jidhaad oran. hooyadaas way naxaysaa. biyaha markay arkaan ilmaha autistiga ah they are attracted to water, biyaha inay ku ordaan bay rabaan. swimming pool meela hadday hooyadaasu degan tahay ilmahaasi inuu ordo uu isku turuu rabaa. waa wax daraasaduhu ay ka waramaan. ilmaha autistiga ah biyaha waa laga ilaaliyaa. sidaa darteed waxaa jira hooyooyin fara badan oo ilmahoodii autistiga ahaa ay biyo uga dhinteen. sidaa darteed hooyadaasi mar walba waxay ka walwalaysaa safetyga iyo fayaqabka iyo badbaadada ilmaheedaas. waxaanan joognaa waddan haddii ilmahaasi wax yar uu ku dhaco hooyadaa la qabsan karo, la su'aali karo. waxyaabaha hooyadaa u dheer waxaa ka mida waalid wax la yidhaahdo social stigma. bulshadeennu runtii ma aha bulsho ku baraarugsan arrimahan autismka. sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay qariso mararka qaar, iyadoo u haysata cilad lagu ceebayn kara inay tahay. xaasha lilahi mana ah. waxyaabaha hooyada single motherka ee keligeeda khaaska u ah ee challenge ku ah waxaa ka mid a waxaa laga yaabaa hadday rabto inay nin kala guursato, relationship inay gasho, inuu ku adkaado. laba siba waalida wuu adkaan karaa. waa mid waxaa laga yaabaa inay ka fikirto ninkan armu kugu diidaa ilmahan autismka qaba autistiga ah. uu yidhaahdaa ilmo autism qaba waa ilmo buuq iyo orod badan. dhanka kale ilmahani faraq u haystaa mar walba, attention buu rabaa, mana hadli karo. waa inay isaga baahidiisa ay daboosho. bulshadeennu aqoon badan uma leh. hadda ka hor masaajid ka mida masaajidda maraykanka ayaa hooyo soomaaliyeed oo tukanaysa waxay aragtay ilmo saa u ordaya masaajidkii. waa ilmo autistigu ahaa. hooyadii markay u timid xambaartay islaanta waxay ku tiri ma habar wadaagaabaad guursatay. waayo dadka walaalaha markay isguursadaan ilmo ciladaysan bay dhalaan. bal u fiirsi, dee waa qof weyn oo islaan Soomaali
soomaaliyeed waanu cudur daaraynaa, laakiin jahliga ummadeennu xaggaasuu gaarsiisan yahay. meeshay odhan lahayd maxaan kula qabtaa, meeshay odhan lahayd hooya ilaahay subxaana wa tacaala ha kuu fudaydiyo, ma habar wadaagaabaad guursatay tiri. hooyadaas soomaaliyeed ma eedaynayo, laakiin waxay tusaale u tahay bulshadeenna iyo runtii aqoonyarida ka haysta. waxyaabaha halkaa waxaa ka mida kow, hooyadaa waxaan u sheegayaa insha allahu ilmo ehlu janno aad korinaysaa, waana ilmihii gacanta ku qabsan lahaa ee jannada kula geli lahaa. lambar labo, halganka aad ku jirto dembi dhaaf buu ku yahay, waayo rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam hadduu yidhi qodax hadday ku muddo ilaahay dembi dhaaf buu kaaga dhigaa, qandhayar hadday ku qabato ilaahay dembi dhaaf buu kaaga dhigaa. maxaad u malayn walaashayay ilmo ilaahay subxaana wa tacaala ciladaa u gartay inaad maanto dhan daba ordayso? ilaahay halgankaaga waa og yahay, ilmada hoos kugu qubanaysana ilaahay waa og yahay, addoomihiisana ma kala jecla ee waxa weeye ilaahay kuwa uu jecelyahu imtixaama. insha allah waxaa tahay qofuu rabbiga jecel yahay uu imtixaamayo. bulshada waajibka saaran waxa weeye support system, inaan taageero bulsheed, taageero ehelnimo u samayno hooyooyinka noocaasa iyo aabbayaasha noocaasa ama dhammaan waalidiinta noocaasa, annagoo kor u qaadayna wacyigelinta ku saabsan autismka, annagoo isla wadaagayna qaabka loola tacaali karo ilmahaas. fadlan janaalkan adaa iskale waalid, subscribe gare, walaalaha muslimiinta nala sheer gare. wasalaamu calaykum waraxmatullah.